بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة نيسة دحاد الاكتشاف هذا العلم في القرآن الكريم. حلقة نحن كوجوس وجودنا يا إعجاز كلابات علمي ولقي يابو إن هذا نسيده كلا وكين نسيده فضل القرآن كوجرت وحيابها إسكول هذا أما جامعة لو ودكتو أما علم الفلك وحيابها أنك أغنى وحكمد qoraxda si ay bil dhameystiran inta bil dhameystiran anagu aan qano 29 taqriiban meelahaas yaani bisha caadiga ee cirka waxay dhulka ku wareegtaa la yiraahdo 27 maalmood iyo taqriiban 7 saacadood iyo 43 daqiiqo meelahaas adiga 27 maalmood ay ku qaadataa bishu inay dhulka ku soo wareegto 27 maalmood waa macruuf wax la yaqaano waa wax yaani laga yaabo in iskuul ku qaadato ama aad maaragtaanay aad jaamacadaha ku qaadato ama aad ogtahay laakiin quraanka hadii laga raadiyo sidaas si u dhiganta ay quraanku u sheegayo simply hadii la raadiyo inta jeer ayam quraanka ay ku soo aroortay ayam al-qamar yaani maalmaha bishan rabna inaan tirino ay wareega kaamilka ay sameeyso haddii quraanka laga raadiyo ayam inta jeer uu ku soo arooray simply waxaad soo heli doontaa waxaad si fudud aad u soo heli doontaa 27 jeer oo quraanka ay ku soo aroortay ayam dhinac kale haddii aan ka fiirino inta jeer quraanka ay ku soo aroortay al-qamar waxaad soo heli doontaa oo quraanka u arki doontaa inay 27 jeer sidoo kale ay ku soo aroortay kelmadda al-qamar taas macnaheedu waxay tahay quraanku wuxuu noo cadeynayaa waxyaabaha anagu hadda aan cilmi falak inta aan ka ognahay waxyaabaha aan yaani iskuulada iyo jaamacadaha ay ku barano waxana loo sheegaa bishu inay rotation rasmi ay sameeyso ama ay full rotation ay sameeyso full cycle ay sameeyso muddo adiga 27 maalmood quraanka hadaan sidaas ishaarooyinka quraanka uu bixinayo hadaan fahmayno sidoo kale ay maaragtaanay laakiin quraanka inagu inta badan sidaan xalaqaadkii hore ku sheegay quraanka anagu inta badan kelmadaas macnaheeda baan ku tacalluqnaa laakiin nidaamka ay u dhisan tahay iyo qaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ratibay inta jeer uu soo celceliyay waxaas inta badan ma ictibaarin wallahi ma aaminsani waxaan inay tahay wax iska qoysadansi ama lama filaan iskaga dhacay waxaan aaminsanahay ijaaz min Allah inay tahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sir iyo xikmad isagu uu dhaxgeliyay quraanka dhan sida uga buuxido marka insha Allah ta'ala casharada dambe ayaan ku qaadan doonaa ijaazaad kuwan oo kale iyo kuwa ka sii waaweynba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.